بسم الله الرحمن الرحيم horta aan raagayga ka dhiibto shirkaas saaka muhiimka ee ka dhacaya magaalada Djibouti shirkani horta waa mid aad u muhiim ah wuxuuna muhiim ku yahay horta 3 sano wada hadal caadi oo foolka foolama dhicin marka waan soo dhaweynaynaa waxa la isku yahay ayaa waxa la isku hayo ka weyn waa shir aad u muhiim ah aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa taariikhdana uu galaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هذا ويديسي aragtidaada maxaad ka qabtaa shirka ka dhacaya Djibouti ee laga hadlayo midnimada Soomaaliyeed horta shirkaasi aanu wax ka soo baxayo rijo weyn kama qabo waayo koonfuri awalba midnimo ma rabin caasimadii bay qaateen madaxweynaha bay qaateen ra'iisul wasaarihi bay qaateen ilaa 60kii midnimo ma rabin sida awgeed wax ka soo baxaya ma jiro inay koonfuri tanaasulato ama midnimada ay doonayso inay cadeeyaan mooyaane khiyaamada bal isku hagoogtaay ma aqbalayna baan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الصومالي لا يا صومالي هو مقدس وحنا نسوينا صدق سنوات بان نسوينا هنا إلا ولا هالله والله ولا هالله صدق سنوات نسوينا رالينا وان كان هاي صدق سنوات بان لا هو مقدس صومالي لان إيه كان صدق سنوات مو حالنا صومالي هو مقدس وحنا من مدى مهمة إلا ولا شوية مهمة إلا ولا نولا مهم وحنا صود ويننا مستبيحي تذكرني حكر الرحمن لنا قبل كأول هذا نحن صومالي أيام تاجرتنا صومالي لأنه تاجرتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد هذان هذا اللي يرتقى قبل كأوضل وعن سود وينا وذا هذا الكالصوماليا يو سوماليان ساكو فرمي وحنا لنا هاي وضف يعني الطريقة في عم بفرنتي وحنا لنا وان سود وينا وان غالبا وكنا إن نكبرنا وان كم من نقطة سوماليا دي سعدي اللي يغني إلى راس كابون إلى يعدو إلى سوغادو أنا وحيلتها سوماليو مدودة هاي تامن تعال أيون حاجة رسنا لمن كان تذكر عيه مدحضر شيء قال يا markii hore wax soconaya ma yahay ana fikirkayga markaa waxa ila tahay fikirkayga saliimka waxa ila tahay in la midoobo aad baan taageersanahay waxaana maartay aan door bil lahayn la intaan dhanaan mikadaas waa hadalku socdaan in maanta maada guurtidii tagtay halkan waqti aad ka socdo in qodobka masiirka dhabta laga wada hadlo oo qodobka maartay la soo reesiyo oo nirgadaaya ganacsi laga wada hadlay mar walba hadalku meeshu ka sii bilaamayo in la soo koobo oo hadalka dhabtiisa laga hadlo masiirka hadii la kala go'ayo iyo hadii la isku jirayo qodobka in awood la saaro yaan aad taageersanahay wada hadaladan waan soo dhaweynaynaa عليكم ورحمة الله وبركاته أرسا waxaan soo dhaweynayaa anu Soomaaliya Soomaaliland inay midoobaan waayo Soomaaliya waa ma garan kartaa Soomaaliland waa qayb ka mid ah Soomaaliya marka maadaama ay saatay midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland waa muqaddis oo jecelnahay inay ma garan kartaa midoobaan oo hal mid noqdaan saasaanan awood ku yeelanaynaa oo ma garan kartaa caalamkuna ku hormari lahayn waayo imka hadii Soomaaliland ictiraaf la siiyo goboladii kale ictiraaf bay weydiisanayaan awdal state baa dooni gobol kasta ma garan kartaa markaas darteed waxaan leeyahay anigu ama fikirkayga aan oran lahaa Soomaaliya Soomaaliland hamidoobaan gobol kasta ma garan kartaa waa qayb kamid ah Soomaaliya taasaanan awood iyo ma garan kartaa dawlad kula jaan qaadi karnaa caalamka waxaan rajaynaa shirka ku dhacay Djibouti inuu noqdo ka soo baxo midho ka soo baxo wax oola inuu ka soo baxan jecelahay oo Soomaaliya markay joogto mid noqoto waayo kolka aragtidaada maxaad leedahay shirka Djibouti ka qabsoomaya maanta maxaa ka soo bixi kara baad leedahay anu waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu noqdo shirka hore mid noqon mid ka duwan noqdo oo Soomaaliya mid noqotaan jecelahay salaamaya marka hore haddii aan aragtidan ku aadan ka hadlo labada nin ee ku kulmaya Djibouti daniya waxba uma arka wax weeye waa sidii hore wixii Turkiga ku kulmi jiray marka wax liyo faa'iido wax soo wadaan ma jirto marka waxaan leeyahay daraabku waa sakaa saarnaa daraabkana waa khayr qabay marka waxaan leeyahay faa'iido aan noo ka soo korinaysa xamariyadii baa islaynaysa marka meel la isku cunayeen aadnaba ma haba bartanaan iskaga gaajoonayna oo aad ku amni helaysaa shacabka iyo dadweynaha waxba uma dhaxeeyo hore wuxuu sheegay in ayna marnaba Soomaali kala guyi karin midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa muqaddis kayga waxa ka soo bixi kara oo aan filaynaa in ay midoobaan oo gacmaha isqabsadaan oo Soomaali mid noqoto halka maanta midowga reeyo ay mid ka yihiin waxa loo baahan yahay inay Soomaali mid ahaato wada hadallada maxaad leedahay wada hadalladii hore way kaga duwanaan karaan wada hadallada hore waxay kaga duwanaan karaan maanta beesha caalamka ayaa u soo jeeda siyaasiyiinta caalamka iyo dunida oo dhan baa eegaysa sidaa daraaddeed dadkuna way bislaadeen waxa laga yaabaa chance-kii ugu dambeeyay marka dadka reer waqooyigu waa in ay ka hadlaan danahooga waa lana khiyaamadii ay ka baxaan oo ay maanta dhinacooga siyaasadda qaybta ay goostaan
mahadle aragtida weydiisay ee shirka Jabuuti ka dhacaya ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya anigu waxaan leeyahay aad baan ku faraxsanahay waxaan jecelahay inaan Soomaaliya israacdo waan doonaynaa waxaan ka rajaynayaa inay ka soo baxaan go'aamada fiican oo shacbiga iyo ummadda Soomaaliyeed ba rajo geliya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. saddex dhaqso u dumaan qoys saddexdu loo culowday qabiil galaad rabbi yaqaan waaye qaran reer baadiyo u tiriyay saddex dawlad baadiya keenta dalnac diinac dadnac waxaan kulmayaa waa reer baadiyo waddanka dumiyow Soomaalina waxa laga leeyahay shan beelood baan nahay taa waxaan u arkaa sax waxaana sax u arkaa Somaliland inay Soomaaliya ka mid tahay waayo maalintii halkaa Kenya ay ku dhawaaqday maxay tiri inaad arrinta doonay waxaan naga caawiya maxay daanay badda inaan badda iyo xuduudda naga caawiyo ku lahaa madaxweynaha Kenya ee Somaliland way diiday adeer Soomaali meel ma kala tagayso Soomaaliya waa Soomaali Soomaaliyana Soomaali baale Muuse Biixina dadka iyo wuxuu leeyahay Muuse Biixi waa nis Soomaaliya u socda annaguna isaga daba socnaa marka waxaan in Soomaali weyn waa muqaddas horta haddii aan ka hadlo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socda Jabuuti aad baan u soo dhaweynayaa xukuumadda Somaliland 30 sano ba ictiraafa imanaya haysa ma garat wada hadallada Jabuuti ka socda ee farmaajiya Muuse Biixi u dhaxeeyana waxaan rajaynayaa inay midho dhalaan insha Allah waan soo dhaweynayaa warka maanta Jabuuti ka socota shirka loo fadhiyo ee Soomaaliya iyo Soomaaliland inay midho ka soo baxaan mid kale waxaad ogaataan dadka 30 sano halka hadal ka wata ee maartay kolba meel laga soo rogayay inuu waxba bislayn wali oo runta la isku sheegay murtidna waxa weeye waxa Soomaali aniga maanta ay daran bad Soomaalina u tana aniga caruurtaydu waxay joogtaa xamar kuwan aan ku dhalay baa joogay imika war isgaari weeyeen waxaan salaahay Soomaaliyana been la isku sheegay ma kala maarmayso ya waa mid qura weey Soomaaliya ninkii kastaba meel kasta ka hadlay dhulkaan xoreynay ka hadlaynay bay kamid ahayn koonfurtaan u badnayn een askari iyo wax walba ku soo maray soo waxaad garatay maaha de maxaan xoreynayna oo u tagaynaa shalay 77 ugu horjeednay axmaaro maantana kiiba in xoreynaya been baan u arkaanu Soomaaliyeed hoosteed haday ku tashato waxba ka imanaya warnimayow waxa laga hadlayaa wax yaalla maaha maanta halkan Soomaali xor maaha kolkay xorowdo ayaa wax soran karta Soomaali xor maaha ee markay xorowdo wax soran karta waxa isweydiinaynaa Soomaali dadkii dhabarka ka jabiyay ayaa wali u taliyo oo caraba samaysay xusbiyadii baxay iyo jabhadihii baxay caraba samaysay walina caraba ku jirta caraba dhabarka ka jabinaysa SSDF iyo kuwii hortaba Soomaali dhabarka ka jabiyay Soomaali magteeda laga doono kuwii baa wali leh Soomaali baan xalkeeda haynaa Soomaali waxa baabiyay jabhadii amxaarada u galay qarannimadii jabhadii dumiyay Soomaali hal xisaabtanto oo garaw hortaba la soo qabto kolka garaw la soo qabto SSDF lagu qaado dambigii iyo SNMna lagu dambaysin waa sidaas weeyaan walina waxa wax la weydiinaya labadii Soomaali dumisay ayaa wax la weydiinaya haddaan rayga aan ka dhiibto wada hadallada Jabuuti ka furmay waxaan rajaynayaa maanta inayna koonfur waxba noo olin dawladdeena Somaliland nabadda leh hooyaday la joogno inaan maanta inaan go'no oo Somaliland noqono oo dawlad muqaddas noqono ayaan rajaynayaa inaka koonfur jooga